Liibaan Radnaan daawadayaal waa Shubaal Media oo halkan idinka salaamay waxaanu idin soo gudbinaynaa ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xassan al-Bashiir. Waxaa haddaba jirta warar soo baxaya oo sheegaya in maamulka militariga ee ku maalgaarka dalkaasi Suudaan Transitional Military Council TMC ay go'aan ku gaareen inay maxkamadda dambiyada culus ee ICC u gudbiyaan al-Bashiir. Waxaa lagu eedeynayaa shaqaaqooyin iyo iska horimaadyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka dhacay dalka gudihiisa iyo gaar ahaan koonfurta Suudaan ee Darfur 2003 halkaasoo lagu qiyaasay in ka badan 300,000 oo qof inay ku dhimatay. Maamulka hadda talada haya ayaa waxa ay sheegeen in al-Bashiir iyo 3 ka mid ah madaxda silsile ee la shaqeynaysa xilligii dalka maamulayay ay kasoo muuqan doonaan maxkamadda dambiyada culus ee fadhigeedu yahay Hague. Afhayeenka dowladda Suudaan Mohamed Hassan al-Taashi ayaa waxa uu yiri cadaaladi iman mayso haddaan la dhagin boogi. Waxa uu u sheegay BBC qaybta Focus on Africa in al-Bashiir iyo 3 kale oo ahaa madax sarsare oo la shaqeynayay in ay kasoo hormuuqan doonaan maxkamadda dambiyada culus ee ICC. al-Bashiir ayaa iska hor imaadyo iyo mudaharaadyo fara badan oo dalkaasi hareeyay kana socday muddo 2 sano ah ku dhawaad lagaga qaaday xukunka. al-Bashiir waa uu diidan yahay xubin mana aqoonsana xubinnimada kama aanu noqon maxkamadda dambiyada culus xilligii uu dalka maamulayayna waa uu ku gacan seeray. Haddaba talaadadii lasoo dhaafay ayaa looyarka difaacaya al-Bashiir waxa uu yiri al-Bashiir waa uu sii wadan doonaa diidmadiisii ahayd inaanu aqoonsanayn maxkamadda ICC mana aqbali doono xukunka ka soo baxa. UN-ka waxa ay sidoo kale sheegeen warbixin ku saabsan xilligii dagaaladii ka socdeen Darfur oo ay isaga hor imaanayeen kooxihii hubaysnaa iyo ciidamadii dowladda Suudaan ee ka amar qaadanaya al-Bashiir iyo Janjawiidkii oo ka garab dagaalamayay inay halkaasi ka dhaceen barakac aad u badan oo ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay 2 milyan iyo bar. Xariga al-Bashiir waxa ay ICC ku dhawaaqday 2009 isaga oo la shaaciyay 2010. ICC ayaa iyadu ah mid baarta dadka looga shakiyo dambiyada ama gaboodfalka iyo tacadiga loo geysto dadka xilliga ay dhacaan dagaalada. ICC waxaa ku mideysan 123 dal oo dunida idil ah halkaas oo ugu horeeya dalka Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee wadamada power veto-ga dunida kule 5tooda ugu awoodda weyn 3 ka mid ah ayaan ka mid ahayn amaba aan aqbalin oo diiday inay ku biiraan maxkamadda ICC. Wadamadaas oo kale ah China, Ruushka iyo Mareykanka. Wadamada kale oo diiday aan saxiixin inay ka mid noqdaan waxaa ka mid ah oo kale dalka Hindiya. Waxaa jira oo kale wadamo badan oo Afrikaan oo iyagu aaminsan in maxkamaddan ICC International Criminal Court loo aasaasay oo qura dadka Afrikaanka ah. Haddaba al-Bashiir waxa uu xukunka qabsaday 30 Juun 1989 isaga oo xilligaas dalka madaxweyne ka ahaa Ahmed al-Mirjani. Ra'iisul wasaarena waxaa ka ahaa Sadiq al-Mahdi halkaasoo uu ku qabsaday afgembi aan dhiig ku daadan. Suudaanna waxa uu ku maamulayay gacan bir ah. Dacwad odayaasha dalka Suudaan ayaa waxa iyaguna sidoo kale aaminsan yihiin in uu al-Bashiir geystay dilal xilligii looga soo horjeeday kacdoonkii iyo dibadbaxyadii looga dalbanayay in uu xukuumadda kaga dego. Maxkamaddan ICC ayaa iyadu ah mid ku caanbaxday inay ugaarsato dadka tacadiyada geystay ama gaboodfallada xilliga ay dhacaan dagaaladu iyaga oo xilli walba ay ku qaadatay go'aansada inay mar un gacanta ku soo dhigaan. al-Bashiir da'diisu waa 76 jir. Sharciga Suudaan ma aanu qabin in qofku hadduu 70 dhaafo jeel lagu hayaa hase ahaatee waxaa taa meesha ka saaray xukunka militariga ee hadda gacanta ku haya. Xukunka militariga ee dalka gacanta ku haya ayaa sidoo kale waxa uu meesha ka saaray nidaamkii ahaa inaanay Suudaan ka mid ahayn xubinna ka ahayn wadamada ku bihoobay maxkamadda dambiyada culus ee ICC. intaas oo ay u sameynayeen in al-Bashiir oo 76 jir ah mar uun ay horgeeyaan ka soo muuqda maxkamadda dambiyada culus si ay ugu qaadaan dambiyo badan iyo tacadiyo badan oo ka geystay dalkaas.